magaalada caasimadda ee Muqdisho markan waxa ka socda dhaqdhaqaaqyo xooggan ee wadaan xubnaha mucaaradka kaasi ay kaga soo horjeedaan muddo kororsiga ay sameynayso dowladda federaalka Soomaaliya oo horkacaya Xasan Sheekh Maxamuud. xubnaha mucaaradka oo sida weyn u diidan dowladda Soomaaliya oo xilligan waqtigu ka dhamaaday ayaa markan waxay kulamo siyaasadeed ay ka bilaabeen magaalada caasimadda ee Muqdisho. madaxweynihii toddobaad ee Jamhuuriyadda Ku-meelgaarka ah ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa wuxuu ka gaayay markaas uu ka guuray guriga uu ka degan yahay magaalada caasimadda Muqdisho isagoo gaaray Miranaayo halkaas uu ka dhici doono banaanbax weyn oo si weyn looga soo horjeedo oo markaas dowladda federaalka Soomaaliya bartamaha bishan June gaar ahaan 4 bishan ayayna ku aadiyeen xubnaha mucaaradka banaanbaxan ay ka wadaan magaalada caasimadda ee Muqdisho. kulan ay maanta ku yeesheen guriga oo Xasan Cali Khayre ka degan yahay magaalada caasimadda ee Muqdisho ra'iisul wasaare hore dalka ayaa waxay kaga hadleen qodobo muhiim ah oo ka aadan sidii banaanbaxan looga qaban lahaa magaalada caasimadda ee Muqdisho. dowladdu si waliba waxay ugu raajogtaa xubnaha mucaaradka waxayna kala furfur siyaasadeed ay ku wada sidii markaas looga baaqsan lahaa banaanbaxan oo la qorsheynayo inuu bartamaha bisha June uu ka dhaco magaalada caasimadda ee Muqdisho kaasi oo si weyn looga soo horjeedo dowladda federaalka Soomaaliya. tan iyo markii banaanbaxyadii hore ee bartamihii bishii aynu ka soo gudubnay ee markaasi 10keedii ee mucaaradku ku fashilmeen inay banaanbax ka qabtaan magaalada Muqdisho ayaa xilligan waxay doonayaan in markaasi ay banaanbax weyn ay ka qabtaan magaalada caasimadda Muqdisho taasi oo si weyn uga soo horjeedaan dowladda horkacaya Xasan Sheekh Maxamuud. degmada Kaaraan iyo degmooyin kale ay xubnaha mucaaradku aag bedesheen si markaasi isaga ilaaliyaan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya kuwaasi oo markaasi doonayeen inay ka hor istaagaan banaanbaxan oo mucaaradku ka qabanayaan magaalada caasimadda Muqdisho. wixii ka dambeeyay banaanbaxyadii hore uga soo filnay waa markaasi fashilmay xubnaha mucaaradku waxay si aad u doonayaan inay banaanbaxyo waaweyn ka qabtaan magaalada caasimadda Muqdisho taasi oo ay kaga soo horjeedaan dowladda horkacamiyo Dr. Xasan Sheekh Maxamuud. mucaaradku horkacaya ra'iisul wasaare hore Xasan Cali Khayre iyo sidoo kale madaxweynihii toddobaad ee Jamhuuriyadda Ku-meelgaarka ah ee Soomaaliya waa Shariif Sheekh Axmed iyo ra'iisul wasaare hore Maxamed Xuseen Roble Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame Saciid Cabdullaahi Idini iyo xubno kale ayaa ku lug leh waa markaasi banaanbaxan la doonayo in la qabto magaalada caasimadda ee Muqdisho toddobaadyada soo aadan ama toddobaadkan ugu soo aadan ayuu dabcan banaanbaxan ka dhici doona magaalada caasimadda ee Muqdisho. dhinaca kale beesha caalamka ayaa wada cadaadis saarayso madaxda Soomaaliya taasi oo ku cadaadinayso inay markaasi isugu yimaadaan gogasha wada hadalka oo hore loogu soo fashilmay taasi oo markaasi beesha caalamka dhexdhexaadinaysay gogol ay markaasi ku yeesheen xerada Xalane oo markaasi ku taala agaarka garoonka diyaaradaha Aadan Cabdullaahi Cismaan Aadan Cabdi International Airport ee magaalada caasimadda Muqdisho. kulankaasi waxaa qayb ka ahaa Saciid Cabdullaahi Idini madaxweynaha maamulka Puntland oo dhanka mucaaradka ka socday sidoo kale Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii toddobaad ee Jamhuuriyadda Ku-meelgaarka ayaa isaguna markaasi qayb ka ahaa banaanbaxaasi la doonayay inay mucaaradku ka qabtaan magaalada caasimadda Muqdisho. dhinaca dowladda waxaa ka socday madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo markaasi madaxweyne ku-xigeenka dalka Saalax Axmed Jaamac iyadoo markaasi xiisadu aan lagu heshiin oo markaasi ku soo dhamaatay qaab la isku fahmi waayo xiisada markaasi ka taagan gudaha Soomaaliya gaar ahaan arrimaha la xiriira doorashooyinka ay mucaaradku si aad u khilaafsan yihiin waxayna doonayaan in gebi ahaanba aan doorashooyinka qof iyo codka ay dowladdu doonayso aan laga qaban dalka. wixii intaasi ka dambeeyay xubnaha mucaaradku waxay wadayaan dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed ee markaasi si weyn kaga soo horjeedaan xubnaha mucaaradka ee markaasi ka socda meelaha kala duwan oo doonaya inay si weyn uga soo horjeestaan waa markaasi dhaqdhaqaaqyadan siyaasadeed ee markaasi ka soo cusboonaanaya waa maareede dowladda federaalka Soomaaliya. mucaaradku waxay doonayaan inay markaasi ay ku guuleystaan banaanbaxan oo ay ka qabtaan magaalada Muqdisho si ay uga hortagaan muddo kororsiga ay sameynayso dowladda Soomaaliya. madaxweynihii toddobaad ee Jamhuuriyadda Ku-meelgaarka ayaana aaga u kala bedelanaya ciidamada dowladda waxaana doonayaa inuu banaanbaxan markaasi horkaco Cabdi Qaydiid oo siyaasi si weyn looga yaqaano magaalada Muqdisho ayaa dib ugu laabtay magaalada caasimadda ee Muqdisho kadib muddo uu ku sugnaa magaalada Gaalkacyo ee dhanka maamulka Galmudug halkaas oo ka waday dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed waxaana doonayaa inuu xubnaha mucaaradka kula biiro banaanbaxan ay doonayaan inay ka qabtaan magaalada caasimadda ee Muqdisho. toddobaadka soo aadan ayaa markaasi la filayaa waxyaabaha ka dhici doona Muqdisho waxaana si weyn loo hadlayaa in banaanbaxan uu ka dhacay magaalada caasimadda Muqdisho iyadoo dowladdu ay markaasi si weyn banaanbaxan ay ogtahay inay mucaaradku ay ka wadaan magaalada Muqdisho iyagoo doonaya in markaasi si weyn ay kaga hortagaan
banaanbaxan ee dowladda qorshaysay oo la doonayo inuu ka dhaco magaalada muqdisho. haddaba waxyaabaha ka soo kordha banaanbaxan ee mucaaradku markaasi u biratumanayaan oo la doonayo in markaasi lagu qabto muqdisho iyo dowladda oo si adag kaga soo horjeeda, iyadoo habeennimadii aynu soo dhaafnay markaasi ciidamo kala duwan la hordhigay guriga oo Shariif Sheekh Axmed ka degan yahay magaalada muqdisho iyo waxyaabaha ka soo kordha xiisada ka taagan muqdisho. barnaamijyadeena dambe ayaad ku daawan doontaan. muuqaalka laygareeya oo nagu soo biira si aad u heshaan xogii ugu dambeeyay ee naga soo gora gudaha Soomaaliya. aad baad u mahadsantihiin.